boqolaal dhalinyaro ayaa isugu yimid hal goob kuwaasoo ku sheekaystay madal islamarkaana ku soo bandhigay barnaamijyo abuuri kara in dhalinyaradu ay nabadda ka qayb qaataan. barnaamijkan loogu magac daray sheeko iyo shaah ayaa xilli sii horeysay laga hirgeliyay magaalada Gaalkacyo si loo helo jawi isdhexgal dhalinyaro oo hakiya colaadaha joogtada ee magaalada Gaalkacyo. shaahi sheeko waxaan ugu talagalnay inaan ku soo saarno dhalinyarada hibada iyo hal abuurka leh oo qarsoon waa masrax ama madal isku weerarsanayaan dhalinyarada hibada iyo hal abuurka ay leeyihiin ay ku soo saarayaan weeyaan lagu soo saarayo. marka sidoo kale waxa weeyaan maadaama aan Gaalkacyo aan deganahay in dhalinyarada integration aan ugu sameeyo isdhexgal dhalinyarada koonfurta iyo waqooyiga Galmudug iyo Puntland inaan ugu sameeyo isdhexgal dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay isdhexgal iyo isbarasho iyo halkaas ay midnimo iyo mataqaana dhalinyarada ay ka helaan. barnaamijkan wuxuu marayaa maantay meeshii ugu wanaagsaneed ma dhigi karno laakiin maalintu bilowday maalintu nagu dhashay iyo maanta meeshuu marayo maalinba maalinta ka dambaysa waxaan dareemaa meeshii aan higsanayn inaan gaarayno. markii ugu horreysay aan barnaamijkan ugu dhashay waxaan la tastay rag saaxiibadaya oo ugu horeeyay gudoomiye Jaafar nin la yiraahdo Asad Abu Diyaabi oo asna sidoo kale qurbaha ku maqnaayo majaajilista oo markuu yimid magaaladii aniga asaga iyo rag badan soo noqdeen xogaa indhihi aan shidnay. waxaan barnaamijkaas barnaamij cawaysin ah maadaama Garowe iyo Hargeysa iyo habeenkii lagu qabto cawaysin Gaalkacyo in habeenkii la soo arko maxaa diidi karaa. face koowaad Gaalkacyo ka dhacay face labaadna isla Gaalkacyo ka dhacay. face koowaad waxaan ku tijaabinay barnaamijka dhalinyarada waqooyiga Gaalkacyo waxaan ogaanay inuu barnaamij qiimo badan u yahay. tijaabadii ugu horeysay dadka oo dhan baa soo dhaweeyay. tijaabadii labaadna waxaan soo keenay dhalinyarada Galmudug iyo Puntland. kulanka Garowe oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista BDRC isla markaana lagu shaahay ayaa markii ugu horeysay ay ka qayb galeen dhalinyarada Garowe ee loo yimid. barnaamijkan waxa la yiraahdaa shaah iyo sheeko wuxuu ka hana qaaday markii ugu horeysay magaalada Gaalkacyo. barnaamij xiiso badan buu ahaa anagana isaga xiisaha noo sameeyay oo na soo jiitay. qasdiga aan meesha u keenayna waxay ahayd arinta Gaalkacyo ka bilaabatay. Gaalkacyo waa magaalo duruufo gaar leh. waa magaalo in dhalinyarada isu timaado is abaabusho ay macno weyn sameynayso. inay habeen sheekaysto maalin sheekaysto inay isu gudubtay macno weyn sameynayso. guud ahaanna dhalinyaradu waxay ka maqan yihiin saaxadaha ay ku kulmaan baa jirin. inta badan waxa laga sheekaystaa ama arrimaha qabiilka ama arrimaha siyaasadda. marka arinta anagu waxaan ka lahay waxay ahayd in la isu yimaado in la isbarto socdaalka nabadda u bixinay. dhalinyarada ka qayb galay ayaa u arkaa tallaabo wanaagsan oo abuuri kara in dhalinyarada ay horseed u noqdaan ka shaqaynta nabadda iyo horumarka. runtii kulan faa'iido weyn waa barnaamijkan oo dhalinyarada ka wacdi gelin kara markaas inay tahriibaan ama waxyaabaha maandooriyaha iyo waqtigooda. marka waxaan kaliya aan soo jeedin lahaa in barnaamijka la ballaariyo oo la badiyo gobolada kalena la gaarsiin ku baaqi lahaa. runtii barnaamijkan waa markii la wada qayb galay anigu hadda ka hor ka qayb galay Gaalkacyo. runtii waa barnaamij waxa weeyaan isdhexgal dhalinyaro ah aad baan waxa weeyaan ugu faraxsanahay ka qayb galo. waa barnaamij waxyaalo badan laga faa'iidayo oo murti iyo xigmad waxa weeyaan sheeko bay isugu jiraan. marka runtii aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijkan la sii wado dhalinyarada la sii dhiirigeliyo. dhalinyarada waxay ka yimaadeen Gaalkacyo galabta ka yimaadeen isla caaw gudaheeda wax ku noqonaya meesha la Gaalkacyo. marka saacaday soo socdaan sii soconayaan. marka aad baan ugu faraxsanahay in la helo in Garowe loo soo shaah doonto boos loo shaah doonto mar wax dhici doonta in boosaas meesha la caasimada waddanka Soomaaliya xamar loo shaah tago laga soo laabto. waxa laga dhaxlay waxaan ogeyn Gaalkacyo inay ahayd dadka markay Gaalkacyo maqlaan in magaalo colaadeed ay ahayd. waxa laga dhaxlay in ay noqotay barnaamijku noqday barnaamij dhalinyarada ay ku midoobaan dhalinyarada ay ku sameeyaan isdhexgal in dhalinyarada isku yimaadaan. hadda waliba waxaan qorsheynaynaa meelkiisa u noqonayaa in dhalinyarada Galmudug iyo Puntland Gaalkacyo in waxa weeyaan ilaa 60 dhalinyaro la isku guuriyo. wasiiradii hore ee Puntland Marwa Cashe Geela Diire iyo dad badan ay ballan qaadeen dhismaha reerka inay ka qayb qaadan doonaan duwaalin. marka waa mir dhalay dhamaanna waa gaarsiinayna gobolada Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe.